garsoore ma hadlaari intaan maxkamadda la saar waxaan doonayaa inaan caddayman maxkamadda aan hor keeno intaas ayaan codsanayaa waxaa dhacday ninka la yidhaah raanaa in la ceebaystay oo sharaftii iyo sumcaddii laga qaaday sidaad la socotaanba raanaa asigoo khudbaynaya waxaa dhacday in sharaftii iyo sumcaddii meel looga dhacay oo ninkaa la caayay raanaa wuxuu u khudbaynayay marka sharaftiisa iyo sumcaddiisa meesha looga dhacaya dad boqolaalo ah raanaa sidaad ogtiin waa nin waddanka sharaf iyo sumcad iyo wanaag kale mana aha nin burcada sida lagu tilmaamayay ninkaasi ku tilmaamay burcadda oo iska soo istaagay runtii annaga wuxuu nala yahay nin iska hadlay xataa raanaa keliya kuma simin caydii wiilkiisana wuxuu ku sheegay nin burcada oo gabar intuu kufsado misana dilay misana laamiga dhigay meydkeedii runtii annaga haddaan nahay ninkaas hadalladiis waxaanu arkaynaa barbagaando iyo dadka sharafta leh inuu sumcadda iyo sharafta uu ka qaado ninka ku hadla hadalladana waa ninka garsoore gabadha meesha laga afduubtay oo la sheegayo waa meel nukaale istaradaalla ah ama suuqa dukaamana ka furaa isbitaallaa ka furaa gawaari baa maraysa dad baa maraya misena waxaa la leeyahay gabadhaas qof aragtay ma jirto gabadhii waa la kaxaysay gaari ayaa la saartay way qaylinaysay cid maqlaysay haba yaraatee ma jirto sida la sheegay dad baa halkaa jooga dadkaas miyaynan dhiga lahayn oo gabadha qayladeeda aynan maqlayn maxay ku dhacday in qof kale ay maqli weyso oo ninkaa keliya oo maqlo ma asiga keliya ayaa arkay oo maqlay kaba soo qaad asigoo maqloo arkay muxuu saldhigga ribood u gey waaye saldhigga ribood ma geyn waa geey maxaa garsoore ani waxaan u malaynayaa ninkan mahadlaari markii falka uu samaynaya asiga xulufadiisa in ciidan boolis ay la jiraan kadibna asiga oo lafiisa ugu cabsado oo u siri dadkaani yaynan wax ku gaadhsiinin maskaxdiisa ayuu si degan ula tashadayoo wuxuu is yidhi dadkan haddaad wax ka sheegtid dhibaato ayaa kaa soo gaaraysa runtii maalintii labaad wuu iscelin waayay ninkan asigoo khudbaynayo mahadlaari aabbihiis oo boqolaalo qofood khudbaynaya ayuu wuxuu la soo istaagay ninkan waa nin tuuga oo qaacina wiilkiisa ayaa gabar kufsaday weliba intaa keliya uguma siminay intuu dadweyne soo dhex mara ayuu makarafoonka ka dafay war makarafoonka ama ka dafin wara u saa dhahay makarafoonka qaado gabarta meesha lagu dafin lokaal istaradaar meehan asbaxyo garsoore gabarta meesha laga wata jidka tariinkaas ah jidka tariinka lokaal istaradaar ma meel dibis amal waay dadkan daluugta meesha ku tal inay geesteen ay dhinta dhacba taj ku soo siiyeen abu ku soo siiyeen waa soo khaleen waa soo dileen tariinkay soo xoran ani amin been ma sheegayaan niko weenan ay garsoore macallin mambuuq waxaan doonayaa inaan su'aalaad weydiiyo ma weydii karaa waa weydii kartaa waay amaliu kekeen macallin mambuuq waxaan ku weydiinayaa iskoolka aad hadda dhigtid intee sanaa dhigaysa iskoolka hadda aan dhigto miyuu sanaan dhigaa ka horna maxaad dhigi jirtay ii sheeg bal kan dawladda 4 sano leen dhigay sabab 4 sano oo keliya سؤاشان إيكيس كان ما إسلام أصبح يوم ما حكوا جرا هاتوا حندقة ماشي روان كشخص ساكر صار مليجي عليها كان مس مليجي عليها سؤاش أنكو سؤالي أو كلي أيات كجواب يسام محكمة بعد صارن تعمل صح تمدا ور أرنتم متاجنا عنو غير أو جبر كفصدي أو كلية واحد أبي سنين وين أو شرف لي وإيه أنكو سؤالي وأنا سير شرف لا أدوك الجواب تاع هذا أدوك الجواب هو يسنا كل بابر هذيك كام ما صحته mid kale ku sheegay adiga maxkamadda su'aalka soo aan ku su'aalayo kiiskan ayaa la socotaa ما رورا mid kale ii sheeg iskoolka dawladda maxaad 4 sano oo kaliya aad u dhigaysay taasaan ku su'aalayaa ii sheeg afka ifid ilkaha antiriya socota horta dadka isku hal mahay koona korkiisa dhiiga ku jira